Bilamedia waxay bixisaa adeeg TV cable oo casri ah. waxaad ka heli kartaa in ka badan 140 kanaal. waxaa ka mid ah 13 kanaal oo si gaar ah shirkaddu ay ugu tala gashay in macaamiisheeda uga qabtirto dhinacyada arrimaha bulshada, diinta, waxbarashada, ciyaaraha, suugaanta, filimada iyo kanaal u gaara ubadka. rasiifarka Bilamedia waxaad ku heli kartaa $30 oo ay la socoto hal bil. Bilamedia madadaalada jilka maanta. soo dhawaada sida aad la socotaan maanta shil yar ayaa ka dhacay iskuulka oo askar booliis oo ka socota saldhigga degmada ayaa iskuulka timid waxayna ka haysteen arday maamulku wuxuu la xiriiray saldhigga degmada waxaana ii sheegeen ardayga ay qabteen ay ku hayaan fal kufsi iyo rikaati isugu jira waliba waxay intaas sii raaciyeen muuqaalaanu haynaa bay yiraahdeen haddaba iskuul ahaan waxaan u xilsaaranahay in aan arrintaas ka hortagno annagoo ilaalinayna sumcadda iyo sharafka iskuulka miyaanay ahayn maamul waa sax in aynu ilaalino sumcadda dugsiga sidoo kalena arrintan si hoose loo xaliyo laakiin anigu waxa aan ilaa hadda la yaabanahay qaabkii aan habboonayn ee askartu ku soo galeen dugsiga isla mar ahaantaasna ay ardayda hortooda ugu jiideen waxay ahayd in ay maamulka soo maraan sidaa daraaddeed qofka eedaysanaha ah si degan ayay dugsiga uga kaxayn kareen laakiin hadda ardaydii oo xisadaha ku jirta ayay argagax geliyeen taasina waa mid aan habboonayn aniga waxay la tahay arrintan inaan anaga ugu sii darin taliyaha saldhigga waa nin la fahmi karo haddii ay ku caddaato ardayga inuu falkan asiga geystay waxay la tahay iskuulka inuu waajibkiisa guto eheladina uu la xiriiro waxaan qabaa arrintaas si hoose in loo xalliyo anigu waxaan qabaa fikirkaa ka duwan waxay la quman in sharciga loo daayo iskuulkuna aanu faragelin iskuulku mas-uul kama aha dembiyada ka dhaca bannaankiisa ardaygu wuxuu bannaanka ku sameeyo sumcaddeeda iyo sharaf dhaceeda isaga ayaa qaadi doona oo ay ku koobnaan doontaa wax saamayna oo iskuulka ku yeelan doonto inaysan jirin bay la tahay arrinkaasi waad mahadsantahay xuseen laakiin ogow ardayga waxaa laga dhex qabtay iskuulka muuqaaladina waa la wareejinayaa iskuulkana waxa uu u xil saaran yahay inuu ilaaliyo sumcaddiisa iyo midda ardayda labadaba waxaad moodaa in mawduuca hadalkeenu uu badan yahay karaamada iyo sharafta iskuulka in la ilaaliyo horta waa waajib in wada saaran karaamada iyo sharaftiisa la ilaaliyo laakiin ma isweydiiseen dhammaantiin gabdhihii dhibkaa loo geystay ee kufsadkaas ku dhacay oo laga yaababa inay ka mid yihiin ardayda iskuulkeena dhigata keliya ma waxay noqosaysaa ee sumcadda iyo karaamada iskuulka anigu waxaan qabaa arrin ka duwan inaynu arrintan aynu ku degdegin oo aynu ogaano sida ay wax u dhaceen gabdhaha ay dhibaatada soo gaartayna waa inaan garab istaagnaa si ay cadaalad u heli lahaayeen waayo kufsigu waa xaalad aad u adag qofku wuxuu wajahayaa xaalad maskaxeed iyo mid jir ahaaneed iskuulka sharaftiisuna waxay ku jirtaa inay gabdhahaas dhibta loo gaarsiiyey inay cadaalad helaan macallimiinta waad mahadsan tihiin soomaalidu waxay tiraahdaa sidee xeega u noqotaa ilkana ku nabadgala iskuulka sidaad ogtihiinba wuxuu lafdhabar u yahay waxbarashada iyo barbaarinta jiilka maanta iyo jiilalka soo socda arrintan aniga ayaa waalidka la xiriiraya si hoose ayaan u dhaqayaa wax alla waxay iga soo baxana waa idinla wadaagaya waa mahadsantihiin anigu ilaa hadda garan maayo goorta dhibtan laga bixin in dembiilaha dembigiisa la hoosaasiyo qofka dhibanahaana dhibkiisaba cidaarku imanka ka waran dareenka gabdhaha la kufsado beri ka maalin markay arkaan kii dembigan geystay oo bannaanka xorriyad ku maraya see dareenkooda noqon kara wallaahi ma garanayo dhankaas
السلام عليكم. runtii aad baan uga xumahay wixii shalay ka dhacay dugsiga waana dareemi karaa qaar badan oo idinka idiga mid ah in aad argagaxdeen laakiin waxaan rajaynayaa in aanay mar dambe soo noqon xaalad noocaas oo kale ah macallin waxaas argagax mala maalul bay dhacanagana waa la qabsanay soo agtinu xubinka ma aha laakiin waa nasiib darro in waxaan caadi ahayn aynu aragno wax caadi ah sida oo kale waa nasiib darro in subax walba aad ku waabariisataan qof la dilayo qori dhacaya qarax dhacaya iyo dhiig qubanaya marka marnaba wax caadi ah maahan inaad aragtid xaalado cakiran oo hortaada yaalla su'aal ma ku weydiin karaa macallin haa wada weydiin kartaa ma ogtiin wiilka shalay la xiraayay dembigoogada arrintaas waxay u taallaa biliiska iyo maamulka iyagaana ka warsugaynaa هاي إيه ورن ساعتها عفمات كورن هاي وافعنا الحمد لله ستادي هاي وافعنا ما شاء الله الحمد لله هاي قعدت محكاية قلعي مid kibir badan iskuulkaas liga naas dagaalnay dhakhtar ma tagto hooy gacantiina jaban tahay in kaleed soo ogaad fiican tahay maxaa kalifa hooy in sidaan dhacdo oo sidaan lagu dhibaateeyo bal ii sheeg maxaa jira gabadha iskuulkaas la dhiganaa mooto ku qaadaa intaanu ka xanaaqaa malenaa gabadha ma walaashiisa mise waa tuu jeclaa ma aqaan kole waxay isku yihiin intuu yimaado wuxuu yidhi gabadhaas iskaga har waxyaabo fuuqan wuxuus u raaciyey waxaas kama xanaaqin aabuu dhintay markuu wax ka sheegay aas celimaa dagaal ah meesha ka dhaca marka gabaana la kala celiyey banaanku igaada imaad haddana sidii wax kusoo gaareen irka qoftaas lagu waastama iska daysa anaa xor iyo ma jeedimiya intay xor ka tahay xabsiga ugu jirtaaye wixii maa wadaa weli wixii maalinta ku sheegaa ma imaatee qoftaa ninkeeda biyo kulaa ku shubtee ama rabaad inuu garac martaan okay raadno quruxoo qoftaa maseera ayaa dhegeysanayno hooy arrintan aabbaha ku saabsan dhowr jeer ay soo noqoto marka aabbaha la sheegaba aad dagaal gelaysid oo sidan oo kale lagu dhibaateynayo laakiin hooyo waxaan kuu sheegayaa aabbaha ma dhiman ose kii ugu wardambeysa aabbaha wuu noolaa inkastoo ay ahayd mar hore inaan kuu sheegay arrintan aan kula wadaago laakiin xabsigan ayaana dhex galay waan aadna waad u yareed laakiin hadda ayaan rabaa hooy inaan arrintaasi kuu sheego oo aad i dhegaysatid aabbaha waxaan isbaranay 2005 aabbaha wuxuu la dhashay gabar aan saaxiib ahayn oo aan aad iskugu wanaagsanayn maadaama aan waqtigaas aanay isaga isbaranay waxaan ogeyn haddii aan arrinta guurka ee aan rabno aan faamilada u sheegno inaysan naga ogolaanaynin marka waxaan go'aansanay inaan guur qarsoodi ah oo qodbasire ee soomaalida u taqaano inaan samaysano kadibna aan faamilka u sheegno waxaa dhacday markii aan rabay inaan reerka la wadaago oo arrinkan aan u sheego oo aan u imid aabbahay Jimcaale iyo walaalkii Yaasiin walaalkii aad uga carooday arrinkaas wariyaa wiilkaada Yaasiin leeyahay iida gabadha wariyaa ana aabaheeda shaqo ku milid adiga saara aaba kaale ifrisaab yaray adiga ma waalan tahay mas waa soo wadataa waxaad leedahay iyo afkaaga misleeyihiin sidee nin nasab dhiman ah aanan isgeyn aa u qudbisaraysanaya faamiligeenna godaad ku riday umana malaynayo si fudud inuu uga soo bixi doono aabe gabadhaan adigaa hadalkaas u sababa inay maanta hawshaas ay qabato guurkaas mid sii soconaya maaha mana sii socon doono yaasiin aabbo u tartiiba walaasha waxay nagu leedahay
waano iyo aqli celin saara aabba waxaa jirta soomaalida dhaqan bay leedahay waxaa jira dadaan isguursan oo soomaali ka mid ah kuwii baana ka mid nahay aabbo intaadan tallaabtaan qaadin bay ahayd inaad nala soo socodsiino si aan aragtidaada aan wax kuugu biirno oon kuugu sheegno dhaqanka sidii uu yahay sidaa darteed aabbo waa aad fududaatay aabbo sababtaa kuu sheegaya waxay tahay dhaqani waxaas aaminsantihiin muuminna anu waa jeclahay haddeertaan waa isqubsaraysanay qofka bini'aadanka ma la rabo in kal dadka bini'aadanka in la kala saraysiiyo diinteen ma qabto xag ilaahay waa ka simannahay muuminna waa ninkayga waa dirtaan aabbo saara aniga waxaan doonayaa wanaaggaada reerkeennana ha ceebayn adigana ha is ceebayn gabar waxaa tahay aayatiin dambe leh oon u raadinayo aayatiin dambe oon u raadinayo intiraab dambe oon u raadinayo in la yidhaha gabadhii jimcaale halkaas ayay degan tahay mid kuu qalmana uu ku guursado soo garan maysid ilmaha ilaahay ku siiyo ee aan awowga u noqonayo waxaan rabaa inaan la heebsoocin soomaadan garanin aabbo dhaqan baana kala geeyey dhaqankaana kala geeyaan kaa la hadlay aniga ee qaab diineed kulama hadlin erayada aan ku leeyahay ayaana ku anfacayo inaad ku dhaqanto oodan reerkaada uga dhex bixin eheladaada uga dhex bixin walaalaha uga dhex bixin ayay ku qurux badan tahay aabbo warkaan ku leeyahay adoo ku anfacayaaye qaado aabe hadalkaan kaa dhex galo gabadhan go'aankeeda way gaartay hadda waxay u baahan tahay inaan ka tashano gabadh isma furto waa la furaa anaa walaalkeeda waddada ma mari karo waxaa leeyahay hebel walaashii hebel kala afdu maxaa lahdaa qodbi saraystay waddadaas haddaan raba inaan maro si sharafa waxaan ku qasbanahay walaasheeda inaan xaqeeda usoo dhiciyo anaa walaalkeeda 20 jira anaan inta u dhan wax kale ma jira aabo hadalka halkaas ku ekay talaabo maahana wax kale uma baahna war kale ma leeyahay aniga waxaan ku leeyahay wiili wax dhaqaaqin aabo waa inaan baxaa kaama yeelin ha dhaqaaqin yaasiin ha dhaqaaqin maya ha dhaqaaqin aabo war ma yaal ha dhaqaaqin warya ha dhaqaaqin وعاسيا فيريا أنا أبيه ولا هذا يسكت دقاقيا أبو ولا الكواكا دقاقي أنا أدرسون كل دقاقي إنه وحلا يلو إنه وحيا لنا وحلا كم لما ضاع بدون بيتجيسا سبب تيجي أبا إسكاله أنا عذرك وانا قباي وانا سخريني ما دام نقف وين هاي أبو ما قبته ما قبته غير جمعة على هدانا هاي أرين كان أسجع هوري جدال بقوله جدال بعضهم كله يعني أول كان كله أكو أنفعه إفتين كان كور هذينا مر مقدي ما تكون صعوتها أنا نلبان كور هذينا ما نسخاذ نيسو وحان كله يلبان كله يعني كبرية تاسي كورة بنتهاي أبا هي بسرعة إلى هدي ورتين ودينا هذه ولا الكي هي بسرعة ما هو لكن كانوا دويدو وقيم عنا نجا كأوه ولا كنا خمي سو ما رد الحكومة ما هذا عادة لدمي عرق على هذا أنا عادة دمي من عادة مرتين لدميسو ما أنا كو قاعد كرنو قاعد وحنا كلنا هاي نجا بهال كل مرة منو بات كل مرة منو بري عادي بحنا كلنا بربارين بحنا كلنا ربنا بحنا كلنا يل هذا يكون في عيساي أبو خوف مسلم لا جورس ده أنا دمي ما قلت ولا أنا وقال ما يوم يكون يعني دقن بقى جيران كولا دقن دين إلى حاجة كلام هذين دقن بان كلام هذين سو جيراننا دقن كمان كو هرو ولا أنيقا دقن كمان كولا ربع دقن كأني كأني طالع أني كسوة جورس ده أبو جورس دي وأنا سعنين وأنا كو سعنين كان أنا قربنا إلى كسوة عيا سعنيسو وجورس محل سمين هذا وحال سمين على وطلع أنا كنو طلع أنا كمرينين جواب طريق اللي يدو كذا أنا كمرينين هذه واحدة لا تاي وحنا كلنا ربنا عيال قادة نساء الرجال أن كلها كان فعايو غير كاجا حكبحن ولا الله يوالد كاجا حبحن هدادي دي قبل الله يبعث تاي قولي دب وقول لابو كان هدي دف إيه غير وجه هذا waxaa dhacday marka dhibti jirtay dagaal inuu soo qaado
dagaalkaas isjiijiidkiisi iyo si kama ah ugu dambeyn inuu walaalkay ku dhinto oo aabbaha gacantiisa uu ku baxo. aabbaha ayaa dilay walaalkay. kadib waxaa dhacday aabbahay arrintii markay dhacday aabbaha waxaa lagu xukumay بسم الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدن الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد waxay maanta maxkamadda go'aan ka soo saartay kiiskii Maxamed Muumin Cabdiraxmaan oo dil u geystay Yaasiin Jimcaale warsame oo ah aabihii dhalay Yaasiin Jimcaale oo maxkamadda ku sugan ayay markaana maxkamadda u yeeraysaa. Jimcaale soo dhawaaw maxkamadda waxay go'aan ku soo gaartay 3 qodob. 3daasi qodob oo kala ah qofkii wiilkaagii dilay in aad cafis u fidisaa waa qodobka koowaad. Qodobka labaad oo ah in diyo aad qaadatid. Qodobka saddexaad oo ah in qofkaasi lagu qisaaso. maxkamadda sharafta leh aad baan ugu mahadcelinayaa. mahadcelin kadib garsoore mar haddii aniga 3 qodob oo ilaahay uu soo dejiyay lay dooransiiyey midkaan ka qaadan lahaa daha ay maqashin oo adiyo ay maqashin oo cabis qaabaan qaatay oo ah qisaas waayo wiilka wuxuu idaafiyo wiilkaygii sina kuma cafiyo. walaalo wiilka kaligiisaan ka qaba walaalo cafis ii fide waa ku tuuga cafis ii fide walaalo wiilkan kaligiisaan ka qaba maxkamada idinkan waa idin barya ilaahay ka cabsi waa idin barya igaarkan kaligiisaan ka qaba walaalo adigaan ku tuuga adiga ii fide wiilka kaligiisaan ka qabaa walaalo waa ku tuuga iga dilin igaarkayga walaalo iga qasqaasi walaalkee waa ku tuuga jilbahaada maystaa waa ku tuuga walaalo waa ku tuuga أنا عفيو go'aankii maxkamadda ay soo gaartay maanta halkaas ayuu noogu xiran yahay askartii aawe halka cayninkaas هلا من الوضع مايا ma la dilo marka kadib may lama dilin kadib marka waxaa dhacday inaan aabbahay la wadaagay inaan uur leeyahay walaalkayna maadaama uu meesha ka baxo dhintuusan soo noqonin laakiin la badbaadiyo ilmahan yar aabihiis aabbahay marka wuxuu igu dhahay hal qodobaa jiro qodobkaas haddaa fuliso dilka toogashada waa ka noqonaya okay maxaan sameeyaan ku uri muxuu yahay qodobkaasi wuxuu igu dhahay ilmaha uurkaaga ku jiro uma sheegi kartid inuu isaga dhalay markuu bari dhasho taas marka waa inaad iga ballan qaadaa isagana xabsigiisaa soo dhammaysto aniga marka waa aqbalay tii kadib waxaa dhacday
xabsiga la geeyey isaga marka arrinkaas xilligaas ay igu wardambeysay meeluu aaday iyo meeluu hadda jaan iyo cirib dhiga aniga ma sheegi karo laakiin inuu xilligaas noolaa ayaan ogahay marka arrinkan muddadaas aan qalbiga ku haysto aad ku xanuunka badanne maanta inaan kuu sheegay waqtigeeda noqotay marka hadda nin weynaa noqotay waa isku filan tahay hadda waa qaan gaartay aabbaha waa raadin kartaa waddo kasta oo aad u mari karto waad waraadsan kartaa aabbaha اسمع هاي نجمة صفر جوي كبر ما أنت عادي لا والله سيت هذه نبض الحمد لله مركي كتب wax akhbaar cusub sida ogeed leh wabli wax cusub dankiisa cidis ama cidaad saanifisa ku qaba hadda wax rikaata wax dhib wax dhamaysto caadiya alxamdulillah waa markaas أنا هان فرصة مو هلنا كوجو ديو إن أي شرح سيدا واحد عين هذا نفس كده رميست ميجي فعلهم كرتا أوكي كوا أصحابين أصحاب ملي كرا كوا أصحابين ما نسرعني حلفة أذكر عني كدي بيا وحلي ودري وكحما قفل بكل عكرتا هذه كل يدوش عسك صارن هذا أنا عادي هاي ساينك تسعود رجينا هاي اسمع بس أركتنا ملينا هيبو ستة في أنا ستة الحمد لله ستة في أنا ستة في أنا الحمد لله أصحابي سكول قديمات محنو هايسين والله أنا وح معاي إنك محدن كعصب أنا بسيطة كليتهم أنا أو أيان له صافير سنويا ميرايسين أيان له أيان صباحي ها وسوقيني والله خلاص أسرعنا وصافير سنينا ديار cuntadana ha ilooynaya diyaar way taas ismaan ooga iska gaawan tahay dadkan badanaa u dhex gashta laakiin waa jeclaaleen hadda filkana la daawa kartaa macquul baan guriga tigra hooya caabirwa mar kale ka badan laakiin haddii kaa qabatay inaafan qaadatid ani asxaabtii mar walbo welcome soo qabale صعب ولا جوج